Mararka qaar qofku wuu qoslaa, laakiin qalbigiisa wuu daalan yahay. Dad baa hareerahaaga jooga, telefoonkaaga notification baa u soo dhacay, nolosha way socotaa, laakiin gudahaaga wax baa ka maqan. Waxaa laga yaabaa inaad isku dayday madadaalo, social media, heeso iyo mashquul aad u badan, laakiin marka aad kaligaa noqoto, waxaad dareemaysaa culays aan la sharixi karin. Maxaa qalbiga daaliyay? Qalbiga bini'aadamka looma abuurin inuu ku noolaado wax kasta isagoo ka fog Allah subxaanahu wa tacaala. Dunida maanta wax walba waxay rabaan dareenkaaga, telefoonkaaga, dadka, walbahaarka, mustaqbalka, cadaadiska nolosha, laakiin qalbigaaga yaa quudinaya. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay, kuwa rumeeyey qalbiyadooduna waxay ku xasilaan xuska Allah subxaanahu wa tacaala. Ogaada, xuska Allah ayaa qalbiyada ku xasilaan. Qalbigu wuxuu ku degaa marka uu Allah u dhawaado, ma aha marka uu dunida oo dhan helo. Waxaa jira dad wax walba haysta, lacag, hanti, shaqo iyo dad badan oo ku xiran, laakiin habeenkii way ooyaan. Sababta? qalbiga bini'aadamka waxa dunida oo dhan oo yaal ma buuxin karaan. Waxaa buuxin kara oo keliya iimaan iyo Alla ku xirnaasho. Ka fikir, imise jeer ayaad telefoonkaaga furtay maanta? Imise jeer ayaad qalbigaaga u furtay Allah dartii? Mararka qaar Allah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daashid si aad ugu soo noqotid isaga, oo aad u aragtid inaadan waddo kale aadan haysanin, inaad Allah subxaanahu wa tacaala u aragtid mooyaane, inaad Ilaah u laabatid. wax kale danana uma jiraan. Adduunka haddaana lagu fasaxo waan soo daaleyna, meesha keliya aan ku xasileyno, ku degeyno waa Allah subxaanahu wa tacaala xuskiisa. Si aad u fahanto inaadan adiga isku filnayn, si aad u ogaato qalbigaaga inuu u baahan yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Nebiyaashii dadkii ugu iimaanka badnaa ayay ahaayeen, haddana waxay sidoo kale ahaayeen dad kale loogu dhibaato badan yahay oo dhib loo geysto. Hadday tahay aflagaado, hadday tahay dil, hadday tahay garaacis, hadday tahay in wax walbo aad maskaxdaada kusoo dhici kara oo dhibaato ayaa la gaarsiiyey, laakiinse mar walba waxay ahayn dad Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran. dhib kasta loo geystana way ka gudbi jireen. Nebi Yacquub calayhi salaam markii laga fogay wiilkiis la yiri waa la dilay, oo Nebi Yuusuf gacan kala galay, Masar laga tuuray, Nebi Yacquub dhibkiisa, murugadiisa, culayska iyo walwalka uu dareemayo oo leeyahay, waxaan u sheeganayaa Ilaah subxaanahu wa tacaala, innamaa ashkuu bathii wa xuznii ila Allah. dhibkayga iyo wax kasta aan dareemayaba Ilaah baan u sheegan. Taasi waa sirta dadka qalbigoodu nool yahay. dadka oo dhan ma fahmi doonaan xanuunka, laakiin Allah subxaanahu wa tacaala wuu ku arkaa, wuuna fahmayaa waxa ku haysto oo aad ka cabanaysid markaad asiga u sheegatid. Ha isku daalin inaad dadka u sheegatid dhibaatooyinkaaga, xanuunadaada, culeysyadaada, maxaa yeele wax kama qaban kara. mar walba u sheego Allah subxaanahu wa tacaala waxa aad dareemaysid iyo culays kasta ku hay, asiga ayaa kaa dulqaadi kara. waxaa laga yaabaa inaad daashid, maxaa yeele muddo dheer ayaad wax walba kaligaa isku dayday inaad wadid oo aad samaysatid adigoo Allah subxaanahu wa tacaala iloow. caawa ka hor intaadan seexan, hal daqiiqo fadhiis, telefoonka dhinac iska dhig, qalbigaaga Allah kala hadal. xitaa haddii ereyo kuusoo bixi waayaan, Allah subxaanahu wa tacaala wuu maqlaa, xataa adigoona hadlin. wax walba qalbigaaga uu dareemayo Ilaah subxaanahu wa tacaala wuu og. qalbigaaga wuxuu u baahan yahay Allah subxaanahu wa tacaala sida jirkaaga ugu baahan yahay cunto iyo caafimaad. nolosheenana waxaa keliya noogu muhiimsan inaynu hagaajino xiriirka aan la leenahay Allah. markaynu baranno oo hagaajino, wax walba nolosheena way hagaagaysaa. si aan nolosheena ay u hagaagto, waxaan u baahannahay inaynu ka fogaano dembiyada, inaan ka fogaano macaasida. waa waxyaalaha mararka qaar teed adag ah oo naga dhexgalaya xiriirka aan la leenahay Ilaah subxaanahu wa tacaala. aan ku dadaalno salaadaha, aan ku dadaalno qur'aan akhriska, waxay noo furaan baabka Allah subxaanahu wa tacaala. waxaan helaynaa deganaan. waxa aan raadinayno maalin walba waxaan ka helaynaa salaada, qur'aanka, inaan mar walba ku dadaalno oon Ilaah ku xirnaano mar walba. Miirath podcast ayaa daawanaysaan. muuqaalka laag saara, muuqaalka xiga si uusan kuu seegin. subscribe saaro. waxyaalo badan oo ku saabsan deganaanshada iimaanka ayaan mar walba halkan uga hadli doonaa. mahadsanid.